kulankan waxaa loo qabtay 35 xubnood oo wiilal iyo gabdho isugu jira waxaana lagu qabtay xafiiska Moonlight ee magaalada Boorama. kulankan waxay ujeedadiisu ahayd sidii la isaga kaashan lahaa in dhalinyaradu ay codkoodu ku taageeraan musharaxiinta ka soo jeeda haweenka dadka laga tira badan yahay iyo dhalinyarada ee u tartamaya golayaasha deegaanka ee goboladan Awdal iyo Salal iyo guud ahaan Somaliland. waxaana kulankan iska kaashaday fulintiisa Akademiyada Nabadda iyo horumarinta ee Somaliland iyo ururka gabdhaha Moonlight ee ka dhisan gudaha gobolka Awdal. kulankan waxa ugu horeen ka hadashay Ifraax Maxamed Cabdi Galbeedi oo ka socotay Akademiyada Nabadda iyo horumarinta Somaliland waxayna ka hadashay ujeedada kulankan. marka hadaynu eegno waa tirada ugu badnayd ee haween iyo dhalinyaro iyo waliba dadka laga tirada badan yahay ee murashaxiinka noqda golaha deegaan 2002 saddex dumar ka ahaa 332 murashax. marka hawsha maanta socona waxa weeyaan inaynu bulshada tusno inoo ka socona ururada rayidka muhiimadda ay leeyahay haweenka u leeyihiin dhalinyarada u leeyihiin golo deegaan inay ku soo baxaan. qofkiiba ugu yaraan 10 qof uu gudbinaya farintu gudbinayana waxa weeyaan dumarka iyo dhalinyarada maanta inaynu soo saarno hadaynu cod ku soo saarayno hadaynu campaign ka caawinayno wixii loo qaban karay in loo qabto. sidoo kale Hibe Cusmaan oo ku hadlaysay magaca ururka gabdhaha Moonlight ayaa waxa ay kulankan kula hadashay dhalinyarada ka qayb galaysa. Janice aad u ballaaran oo dhalinyartuna ay ku jirto haweenkuna ay ku jiraan maanta iyagoo booskoogii haysta oo alxamdulillah tahay loo ogolaaday ogolaanshaha inayna fursadaasi iska lumin ayaan maanta u soo diyaarinay oo ka qayb qaataan sidii maalinta cod bixinta runtii ay isku taageersan lahaayeen ayuu barnaamijkan xuseeyaa maanta aan u soo diyaarinay si ayna codkooga iska lumin awal hadduu codku ka lumi jiray oo la odhan jiray dhalinyarta ma aha oo mid madaxweyne la soo maray mid baarlamaan la soo maray maanta waa tii golaha deegaanka Janice ay u haystaan ay ka muuqdaan oo dastuurka ama nidaamka wadanka u yaala loo ogolaaday in ay ka qayb qaataan ogolaanshaha ay uga faa'iideystaan fursadooda qaaliga ah. gabagabadii kulankan waxaa hadallo dardaaran ah dhalinyarada u jeediyay xogayaha gobolkan Asad Cabdi Jaamac waxaana hadaladiisa ka mid ahaa. maanta oo runtii ah mowduuc aad iyo aad u qiimo badan aanan ugu mahadcelin cidii soo qaban qaabisay waqtigan aan ku soo jirnay ama inagu soo socdeenay maalmihii ugu xasaasiyad badan in dhalinyarta ay ka qayb qaataan iyo hablaha iyo inamaduba sidii ay wada jir uga qayb qaadanayaan Allah doorashooyinka iyo cidda ay dooranayaan qofkaas ay ku dooranayaan nin walba ma toota waa arki kadin waa 7 xisbi dhalinyar badan oo ku jirtaan anu hadaan de kulli anu dhalinyarta hadana ku dhex jiraan de way muhiimadu waad garanaysaa cidda dooranayso iyo dhalinyarnimaduna ay ku badan tahay. Cabdi Fataax Ahmed, Hadwanaag News, magaalada Boorama.